Hagia Sophia waa masjid taariikhi ah kuna yaala mid ka mid ah goobaha ugu caansan magaalada Istanbul. Waxaa si weyn ku soo jiidanaya qaabka loo dhisay oo ah mid aqoon weyn laga dheehan karo. Su'aasha aad isweydiinaysaa marka aad gudaha u gasho masjidkan ayaa ah intee ayay gaarsiisnayd aqoonta dhismaha bini'aadamka ee kumanaan sano ka hor. guud ahaan dalxiisayaasha imaada dalka Turkiga ayaa waxa ay u tahay meel aan la dhaafi karin. Masaajidkan ayaa waxaa la dhisay 537 taariikhda miilaadiga waqtigaasi oo uu hakanaysa balse mar dambe dawladda Ismaaliyiinta ayaa waxay ka dhigtay masaajid mar dambena waxaa laga dhigay museum loo dalxiisto 80 sano kadib maanta waa masaajid lagu tukanayo. boqortooyada Ismaaliyiinta ayaa iyagu ku soo kordhiyay masjidkan Hagia Sophia minaarado markii masjidka laga dhigay. masjidkan Hagia Sophia ayaa waxa uu ka kooban yahay masjid lagu tukado iyo goob dalxiisayaasha lagu talagalay. qaramada midoobay ayaa masaajidkan waxay u aqoonsan tahay mid ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee caalamka ku yaala. waxaa muhiim ah inaad ogaato galitaanka masjidku waa uu lacag la'aan dhammaan dalxiisayaasha. runtii waan ku faraxsanahay inaan soo booqdo masaajidkan oo hore kiniisad u ahaa haddana masjid